bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo waliba dhalinyaro weynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa si ballaaran soo dhaweeyay doorashada dhawaan la doortay hoggaanka guud ee dhalinyarada ururka dalada ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waxaana baaq u direen xukuumadda iyo waliba cid kasta ka soo horjeeda inay gacan bir leh wax lagaga qabto doorashadaasna ay tahay mid xor iyo xalaal u dhacday waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarta aqoon-yahanka ee ku dhaqan magaalada Laascaanood oo iyagu ugu baaqaya bulshooyinka reer Soomaaliland in doorashadaas ahayd mid xor iyo xalaal u dhacday waxaana warbaahiyaha qaranka uu la dhex maray mikrofoonka bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ay sheegeen in doorashadaas ahayd mid xor iyo xalaal ah iyagoo hambaliyana u diray cid kasta iyo waliba qabanqaabayaashii shirkii guud ee dalada ay ku boobeen dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo raxmadan nahay odayaasha iyo dhalinyarada iyo waxqabadka deegaanka gobolka Sool magaalada Laascaanood waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan soo dhaweynaynaa doorashadii xalaasha ahayd ee ka dhacday dalada Soonyo oo si cadaalad ah ay u dhacday waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddidii doorashada ee arrintaas ku dhawaaqday sida cadaaladda ugu dhawaaqday waxaan xambaareynaa qolyaha eedeynaya doorashada waxaan leenahay ku qanaca doorashadan cadaalad bay u dhacday sidii la rabay bay u dhacday shuruudihii way buuxisay daladaha kale iyo hay'adaha kale dawliga ay jiraan waxaan u sheegaynaa inay iyaguna sidan loogu daydo si dalku isbedel iyo horumar iyo nabadgelyo ay u sii ballaarato haddaanu nahay bahda dhalinyarada aqoon-yahanada gobolka waxaanu u hambaliyeynaynaa ugu horeyn labada hogaamiye ee loo doortay dalada Soonyo gaar ahaan Cabdiqani Maxamuud Shiire oo ah gudoomiye ku-xigeenka oo aanu saaxiibo nahay in badan aanu saaxiib ahayn ayaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa ninkaas oo ah nin karti leh oo booska loo doortay ka soo bixi kara ahana gudoomiyihii hore ee Laifo Cabdiqani waxaan leenahay waan ku hambaliyeynaynaa hambaliyo waxaan uga soo jeedinayaa dalada Soonyo ee dhalinyarada sidii xor iyo xalaal ahayd ee ku dhacday doorashadooda waxaan halkan aad uga hambaliyeynayaa gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha doortay waxaana si aad ugu soo hambaliyeynayaa waliba saaxiibkay Cabdiqani Maxamuud Shiire oo loo doortay aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa haddaan nahay dhalinyarta iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka Sool doorashadii xor iyo xalaal ahayd ee ka dhacday doorashadii loo qabtay ururka dhalinyareedka Soonyo ee Soomaaliland waxaanu ugu hambaliyeynayaa guddigii soo qaban qaabisay doorashada ee sida xorta iyo sida xalaasha guddigaas isugu xilqaatay waxaanu leenahay hambaliyo waxaanu leenahay kadib markii aan dooranay doorashadii xalaasha ahayd ee ka dhacday Soonyo waxaanu u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay iyo xubnihii lagu doortay hogaamiyaashii lagu doortay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdiqani Maxamuud Shiire oo loo yaqaan Sugule oo ahaa gudoomiyaha ururka Laifo waqti dheer kana mid ah aqoon-yahanada gobolka Sool ee u ololeeya horumarka arrimaha dhalinyarta iyo waxbarashada iyo caafimaadka waxaan doorashadaas ku tilmaami karaa doorashadii ugu horeysay ee cadaalad u dhacda ee Soonyo dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo waan ku hambaliyeynaynaa inay ku hambaliyeynaanaa ku soo dhawaadaan dalada dhalinyarada buhoobay ee Soomaaliland waxaan aad u taageerayaa xisbiga kulmiye waxaan taageerayaa Silaanyo waxaan taageerayaa inuu xilka noo hayo waxaan leeyahay xisbiyada kula lamaya ha u daayeen Silaanyo ha uga maarmeen waxqabad buu sameeyay wadooyin buu sameeyay waxaan taageerayaa wasiirada Soomaaliland ee u dhashay gobolka Sool dhammaantood waan taageerayaa dhalinyaradana waan taageerayaa reer Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland iyo hoggaanka ay doorteen reer Soomaaliland baleenina gudoomiye ku-xigeenka koowaad dalada Soonyo uu ka yahay gudoomiye ku-xigeenka Cabdi Maxamuud Shiire aad iyo aad baan u soo dhaweynaa mid xog iyo xanaan ahayd oo soo dhaweynaa gudoomiye وبرخد عمر أحمد تلفزيون قرن Soomaaliland Laascaanood